Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa ka hadashay rabshadaha ka socda dalka Koonfur Afrika ee lagu dilay muwaadiniin Soomaaliyeed oo ku noolaa dalkaasi, sidoo kale lagu boobay goobo ganacsi oo ay leeyihiin dad Soomaali ah. Hadal qoraal ah oo ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda Xukuumadda Xilgaarsiinta ayaa waxaa lagu sheegay in dowladda ay aad uga walaacsan tahay rabshadaha burcad hubeysan ay ku dileen muwaadiniin Soomaali ah kuna dhaawaceen kuwo kale isla markaana ku boobeen goobahooda ganacsi. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa ugu baaqday dowladda Koonfur Afrika inay dadaal ballaaran ku bixiso ka ilaalinta muwaadiniinta Soomaaliyeed falalka arxan darrada si loo hubiyo badbaadada noloshooda, dukaamadooda iyo ilaalinta xuquuqdooda. Soomaaliya waxay ku faanaysaa xiriirka taariikhi ah ee la leedahay dadka Koonfur Afrika intii ay ku jireen halgankii ka dhanka ah midab kala sooca iyo heerka ay gaarsiisnay taageerada badan ee siyaasadeed, dhaqaale iyo istiraatiijiyadeed ee ay siisay muddo ah, ayaa lagu yiri qoraalka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Xukuumadda. Dibadbaxyaal taageersan madaxweynihii hore ee Koonfur Afrika ee la xiray Jacob Zuma ayaa waxay weli rabshado boob, dilal iyo dhac ka wadaan qaybo ka mid ah dalkaasi. Tobaneeyo qof oo muwaadiniin Soomaali ah ayaa ku geeriyooday rabshadaha ka socda Koonfur Afrika, waxaana madaxweynaha dalkaasi Cyril Ramaphosa uu xusay in ugu yaraan 10 qof lagu dilay rabshadahaasi, halka in ka badan 490 oo kalena xabsiyada la dhigay.